wardadii hawdadka maad iska daysaan qof kastaba dookhii maad u daysaan doodii hadalka maad ka daysaan sidii door bidayaan maad u daysaan wardadii hawdadka maad iska daysaan qof kastaba dookhii maad u daysaan tiba abwaan bacaysan inuu sameeyo adiga kuma moodayne waxaad ii sheegtaa imsa heesodaya oo marbar u sameeyay heestii ugu horreysay sameeyay waxay xubbiga laba ruux dhayaan haddaad ka dhamaan la adin dhibtoodana aad wadaan dad yahow dhimir baati xubbiga laba ruux dhayaan haddaad ka dhamaan la adin dad yahow dhimir baati marka heestaa lafteeda bariga wuxuu oran jirin ma abwaan bacaysan baa sameeyay ku dheeldheel nacabka baas baa ku jirtay waxba yeeriyeynayay international iyo lafteeda caanimo ama anigu mustawaa burco tukaniyo soo garaac duhur heestaas inoo sameeyay Omar laftiisa ka Omar laftiisa igu yiri heestii markaa uu sameeyay in raaba ku jirto qaafilay badan heer axmar quraabkooda waa sheeko kayigi sharaftii kaaligii sidii guryahooda tagno gobolkii waagaba aynu guureyno gacalkeena dhabta gogol kula gamanee kaale gaarisane kayigi sharaftii kaaligii sidii guryahooda tagno gobolkii waagaba aynu guureyno gacalkeena dhabta gogol kula gamanee kaale gaarisane marka dadka wadhan baa naxsan oo eliminate ma taan noqdiba qaar baa aaminsan bil isagaaba eliminate caan bixiiba iyo isagiiba caan bixiiba oo Soomaalidu bay aqoonba dib marka eliminate clipsiisa isagu caan bixiiba oo Soomaalidu oo dhan barim Soomaaliya taqaani sidii laga dhaadhicin la iyo waxba ka haystay iyo sheedaan iyo waxa miya yaqaanay Soomaalidu yar baa taqaani wax faasnad wax baadhay in yar baa eliminate kan marka isagiiba sheedaankii baa tiita loo sameeyay eliminate iyo wabi naxtiin qaar baa isla ujeedka ugu horeysay uu heesta ugu sameeyay joog hadda halka aynu faahno dadweynaha la faahsiino qisada heesta uu ku leeyahay iiga samee waxaad igu tiri malyuumaanka iyo ninkeedu sharma boya isku dhacay kadib wuxuu ku ka codsaday abwaan inaad anu kuma darin duufaan ina suldaan waxa iyo waxaas asaga ku darsaday duufaan ina suldaan wuxuu yiri hadda doonay asaga inta ku darsaday marka ma laga yaabo duufaan ina suldaan kii eliminate ma ay saaxiibku ku leeyahay wallahi ma dhici karto waxa kale ku weydiiyay tangado iyada nooga hor gobolkaygii gadaan tagaya garbahaar iyo luuqban goobta joogta soo maraya gobolkaygii gadaan tagaya garbahaar iyo luuqban sababta mareexankii deegaanadooda loogu koob maxay tahay nabi saaqa reerka labadan Soomaali ku jecel mareexan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh kulanti wanaagsan ilahantiin badaawadaya halkan waa qarniga hadalka aad naga daawanaysaa daawadayaal maalmihii ugu dambeeyay waxa baraha bulshada haystay sheekooyin cusub oo ku saabsan fanaanka Omar Barbar dadka qaar waxay leeyihiin waa uu xanuunsanaya oo ma fahansana waxa uu ninkani ka cabanayo dadka qaar waxay leeyihiin waa niman la yiraahdo eliminatic ayaa eryanaya oo sheedan cabudka loo yaqaan dadka qaar waxay soo qoreen heestii ugu dambeysay ee uu qaaday ayaa ninkan laga raacay haddaba waxa hortayda maanta fadhiya abwaanka heestaasi sameeyay abwaan Dayib Nuur Xasan oo ku magac dheer Dayib Qood haddaba abwaanka laftiisu ma eliminaatigu ku jira may ku wada jireen waxaas oo dhan waxay nooga jawaabay Dayib Nuur Xasan oo saaxiibkayna ku soo dhaw marka hore barnaamijka waan dhawahay aadna wad maasantahay qariyaan Cabdiqani hadalo waxa ku weydiiyay abwaan horta Omar Barbar goorma isbaratay ni waxaan isnaqaanay muddo adigu ilaa 4 sano 5 sano meelaas adigu ilaa iyo 22 meelaas waa 4 sano meelaas ay istaqaaneen aad iyo aad xiriir intee leeg baydin dhex maray kulli laba dul aad kala fog bad joogtaan inaan saaxiibnay oo nahay oo kale de heesahaasun aynu ku saaxiibnay markuu heesahaasun waliba iga dalbada asagu iga dalbado heesaha igu sameeyay ayuu maru sameeyay oo qisada heesta ku sheego ama qisada heesta ama mawduuc ama wax soo kale iga sameeyay dhahdo haddaba barnaamijka inagoo rabna inaynaan dheerayn oo dadka aynu u soo gaabino xaaladiisa sid ku ogeyd abwaan fanaanka wariyahow muddo 20 cisho ka hor ayaan heesu sameeyay heestaas inaan ay family lahaayeen baa u doonayeen oo qaado heestan kale way ka dambeysay heestan 6 bilood ka hor buu soo saaray heestan dadka ma ka deysaan sanad ka horna wuu sameeyay 6 bilood ka horna uu soo saaray marka ayaan dhaweedo 20 cisho ka hor ayaan heestii ugu dambeysay u qoray heestii muusiga waa la tumay Mawlid Cabdiraad tumay Mawlid Karoon muusiga waan hayaa laxankii waan hayaa waliba dhameystay yareedii taa waynu ka jawaabi doonaa oo waynu gaari doonaa balse marka hore waxaan ku weydiiyay markii ugu dambeysay ee wada hadashaan Omar goorma ilaa 19 habeen ama meelahaas ay maflay ama 20 habeen 20 habeen uu joogay meesha Mareykanka markuu joogay ugu dambeysay marka ma xaaladiisu sidee caadi bay no problem iska caadi baa dadka qaar waxay soo qoreen heestii ugu dambeysay ee uu qaaday ayaa ninkan laga raacay shalay un baan arkay hees aan anagu u sameeyay oo waliba oo isagu ka dalbaday oo sanad yaba ka hor ahayd
ayadoo dadkii bilayeen hayaa tan loogama horreeyay uu hawlahaas noocaas warmada way ku oran doonaan hawshanay bal u sheegina dib badan jiray aniga lafteedu war islaam malaha eliminaati gan la sheegayo dayb wax kaga jiray waxaad ku war heshoon socialkii la warniyay heesta laga raacay heestan la raacay ujeedku wadiga aad laftaadu yimay soo wacay heestaasi bal noogu yar luuqay tan raabka dadka ma iska anu waxaan u haystay abwaan bacaysan inuu sameeyo adiga kuma moodayay wal ma bacaysan ujeedku bal eriyada bal noogu luuqay ilaa horta eri la xageedo wala xaraab hay oo cod waxaan ku soo bixi maayay la tahay iyadoo music la socota mooyaan marka waxay wardadii haw dadka maad iska daysaan qof kastaba dooqiimaad u daysaan doodii hadalka mad ka daysaan sidii door bidayaan maad u daysaan qabtaas ay moog wardadii haw dadka maad iska daysaan qof kastaba dooqiimaad u daysaan doodii hadalka mad ka daysaan sidii door bidayaan maad u daysaan heestan dadii haw dadka maad maxaygiisa u daysaan bal maad iska daysaan tan hay ma daysaan tan waxaad iska daysaan tu ku wada dhamaanaysa isku wada eeg qisadu ma adiga mise waa isaga dulmigan dadka qaar ma ka daysaan xantu waa dambiye ma iska daysaan dayn baa xarime ma iska daysaan waxaad ka samaysay hay ma adiga kugu saabsan xogtu mise waa isaga laftiisa kugu saayay ku sameey dabagalku marka waxaan oran karaa ilaa waagaas ku socday ma iska daysaan may anigu waxaan filayay aniga sidoo asagu iigu sheegay hay مسين هذا ردي اللي دبقلي هي وجيت وارددي هو dadka ma iskadiisaan eriyada sameeyay laakiin si uu xukuuri dadkan dabagalay dadka xanta ee ka dhamaan ee hebel iyo hebel ay ka daayay wuxuu iigu sheegay ha wala nool yada uu joogay ha in ninka sharbabay gabadhiisa intay malaas ku yara dhaceen ay Soomaalidii dhax cartay oo sidan iyo sidan ay ka dab kala tafaraaruqeen milyan maanka iyo sharbabay baa ku dhacay ujeedka oo malaas ku yara dhacay bariga ujeedka ugu horeysay uu heesta igu sameeyay joog hadda halka aynu faahno dadweynaha la faahsiino qisada heesta uu ku leeyahay iiga samee waxaad igu tidhi malyuumaanka iyo ninkeedu sharma boya isku dhacay kadib wuxuu ku ka codsaday abwaar inaad heestaasi wax ka soo tiraa halka dhacdada ma igu oran hees dadka waa dad dabagal biyuur imaka tusaale ahaan wiil qeyraan adeer ku hay buu sharma boy islaanti bay kala tageen markaa ayaamaha waa sanadii markaa hore social media hawlahaas haystay way isku noqday way kala tageen waxaas isku haystaan marka wuxuu igu yiri heestaasi ujeedkaas ahayd markaasaan u qoray wardadii hawdadka ma iska daysaan wardadii hawdadka ma iska daysaan dabka ajacaylada isku dirka mad ka daysaan duca iyo farxad ma la doontaan ceebaha dadka hoy ma iska daysaan anu kuma darin duufaan ina suldaan waxa iyo waxaas asaga ku darsaday duufaan ina suldaan wuxuu yiri hadda doonay asaga inta ku darsaday marka ma laga yaabo duufaan ina suldaan kii eliminaadkii ma ay saaxiibku kulliha wallahi ma dhici karto duufaan ina suldaan wuxuu yiri hadda doonaysaan inaad idamisaan eliminated waxba heestan wax ka soo raacinayo berigu heesta qaaday buu waxyaabo badan arkayo waxaasan arkayo gabigiisa TikTok wax kale ma haystaan waxba kama jireen marka waa wacyi gelin ay haydoon malan uu dadka ugu sheegay anu ilaa ma haday qof daba yaaceen uu haatay haday daba yaaceen haday waa asaga la wadiin doonaa nin waru hayay ma hayna wadadii dadka ma ka daystaan doodii hadalka ma ka daystaan sidii door biin ma u daystaan heeso saka oo baad ugu qora oo isugu bacaysay shikini kaamu gelin war ma hayna anigu beriga daba intu de in yar waayo adduunku in yar bedelo ayaa la oran doonaa heestan baad maalintaas balaayo arkay heestaas laga raacayda wad beenisay soo ma jiraan waxba kama jiraan eliminated kani waa wax aad u fakin wax laga sheekeeyo maaha oo de kulli dadka in laga dhaadhiciyo dad shaydaan baa wax awood leh iyo waxaas wax muhiim ah maaha ilaahay baa awood leh ilaahay baa qofka bedele ilaahay baa qofka caan ka dhiga ilaahay baa qofka kor u qaada ilaahay baa qofka lacag siiya ilaahay baa faqiir ka dhiga ilaahay baa qofka dalacsiya ilaahay baa qofka dadka bara ilaahay baa qofka dilicta raxmad disho subhanahu wa ta'ala marka eliminated anu waxaan aqaan sixirolo kale eliminated sheegayso ka sixirka dadka sixir waxaan bartaan waa qof shaydaan ku shaqeeyo wax kale muhiim ah ku jira habeeraad ma jirto anu waxaan markaa u arkaa ama hawla stress ama soo jeed badan waxaas mooyaan wax kale jireen jirin marka in shaydaan loo carro awood shaydaan la siiyo qalad baan u arkaa ma aaminsani balse dadka qaar baa aaminsan eliminated wax jira inuu yahay diin la caabuday hindiba loo caabuday Soomaad garan anigu waxaan aaminsanahay xitaa sixirolayaasha Soomaaliland jooga magaalada meel ba joogaan kuwa sida shaydaan ka caabuday maxay qofka u yiraahdaan waxaas ku dhacay maxay yiraahdaan inta loo tago moolka shaydaan ka sheegatay marka wax weyn maaha waa ilaahay awood shaydaanka ugu seetay dheereeyay waxaad ii sheegtaa imsa heesodaya oo marbar u sameeyay ilaa 5 heesod meelaha heestii ugu horeysay sameeyay waxay xubbiga laba ruux dhaxyaan haddaad ka dhamaan la adin dhibtoodana aad wadaan dad yahow dhimir baatii xubbiga laba ruux dhaxyaan haddaad ka dhamaan la adin dhibtoodana aad wadaan dad yahow dhimir baatii marka heesta lafteeda bariga wuxuu oran jirin
ما بوان بعيسان بسمي كنا اللي نلعب كباس بكوجرتي ولفت ذلك واحد كرتد إنه كل يصدق ضدك يرشكي حبيبي لما يسني فرحت الله والله عدي قصلك كدك سي معان كنا اللي نلعب كباس بلا نلعب حبيبتي لما يسني فرحت الله عدي قصلك كدك سي معان كودلين نلعب كباس waxa kale ku weydiiyay tan gadow iyada looga hor gobolkayga gadaan tagaya garbahaar iyo luuqban goobta joogta soo maraya gobolkayga gadaan tagaya garbahaar iyo luuqban goobta joogta soo maraya caabud waa gabdhihii u dhashaan gidigood ammaana haya geeyooyinkii quruxdan guryahooda booqanaya caabud waa gabdhihii u dhashaan gidigood ammaana haya geeyooyinkii quruxdan guryahooda booqanaya waa magaalooyinkii qabiilkaasi degayay Soomaha macdaha sidaada mareexaanka u jecel sababta mareexaankii deegaanadooda loogu koob maxay tahay kulli anigu family-gan ahay ciidan ahay anigu nin saaqa reerka labadan Soomaali ku jecel mareexaan balad xawgud qurux baan goobile ka tumayayo habla garasho dhar tuurciisahay balad xawgud qurux baan goobile ka soo tumaya habla garasho dhar anigu mustawaa burco ku tukanay soo galay duhur heesaas iyo sameeyay yiri Omar naftiisa yiri heesti markaa uu sameeyay lacag wax kama qaado waxba kama qaadin wallahi gati asaga markaa ma qaadan wali bilaga in raaba ku jirto qaafiyad inta badan heer axmar ku reebkooda waa sheeko كيجي شرفتي كالجي سيدي قريه تتقنوا قبل كي واجب أينو جورينو قال كينا ربطها جوجل كلر جمانة كالي جاري سنة كيجي شرفتي كالجي سيدي قريه تتقنوا قبل كي واجب أينو جورينو قال كينا ربطها جوجل كلر جمانة كالي جاري سنة waxaan ku weydiiyay abwan eriyada dambe ee heestan aanu wali soo saarin balse aad u diyaarisay iyada lafteedu eriyadaas ma eliminaati wax la xiriiro waan kala kacayba ما iska diisay shakabaa تيوري إليمينات لما حريرين إليمينات كوا على رحبك مجرين سوما تقرأني هيست واحد هيست أمانة أو إنان أي فاميلي إنه يكون أمانة مركا إنان تها هيست إريدي وان قري لحم بالله صاري مولد عبد الجليل ومولد كرم باطمي هيست يونو قاضي بورتين والله بتاع شكر إريدو محاهن آسيا دونك سني تنتي بقرطوية دي إلى هدريتشي ميان ضد بقول السنة طيب حبرتين لا فاينل كيم بدك داري سجال كعيور روب كده إنها كده العصاطاي وحط هاي الدرية ده قرعت كده وافتي بعد وين دنيا ديو صاي ما دقالة داخله إلى صلح جارو دقة معني هو قولة فاميلي سرير ما هذا كي هاي محل عمر محمود مركا إن أنت هو إمام موسين أيام تزيد قدام بيسي أو مركا هي لحن كيك بدل بولها مركا تبتين كو قادم مليني وهاج على أي كل حال وإحنا برنامج كاكسو كوبينا هياس تاسي عمر بربر لون إسباني يلا الهوا على جرعي وهي هرف اللي أبوان كي سميه هياس تاسي وح الله واحد صومالي كومنت سوق قريسان أما سؤال تقول بهنتين كومنت كانوا سوق قرا يا أبوان كسيتو سوي دينيسان جوابنا وكبحين دونا هدو الله يرهذا كومنت كينا أما سؤال هذا ويدينيسان waxaa imika uu beeniyay in aanu waxba ka jirin heestaasi laga raacay ujeedadii heesta soo baxday uu soo warramay hay aad iyo aad wuxuu inta aanu tiktokiisaan hay inan ayaan hebel leeyahay oo wuxuu wacida gaba waa ilmaabto kulli waa inan maxamed salaabana dhashay hay muuqaal kori wuxuu la boqortooyad muxuu ahaa cida gala Soomaad garan markuu guriga ka soo baxayna wuxuu lahaa inan tayeeree dhashay sanaysa Soomaad garan kabtalayu buu lahaa waa ragga waxaan ka dambeeya asna wuxuu lahaa walaalkii maxaa ku dhacay kii soo dhigay meesha waxa la waxa saxba ka tiraabay yaraatay ma jireen kuwan baa soo ku daray hadii wax ka tiraabay kuwan ku daray la oo qoni ku shakiyo markuu khayr meel qof wax kaga dhigi aduu wali ma artay in sakhraamay wixii qalbigiisu jiro wuxuu buu soo dhanayo waxa ay jiridii mid baan lagu intan way oran karnaa sanaaba u caanimo ah waxba yeeriyeenayay waa international iyo lafteeda caanimo ma oran karnaa dadka dhan baan naxsano eliminate-ki baa tacaan noqdayba qaar baa misan bilis isagaaba eliminate-ki caan bixiiba iyo isagiiba caan bixiiba oo Soomaalidu bay aqoonba eliminate yaanyo waa binaxsiin qaar baa isla dib marka eliminate clipsiisa soo caan bixiiba wax la eliminate-ki wuu xotay laftiisa Soomaalidu oo dhan barim Soomaaliya taqaani Soomaalidu ma istimka wax weyn oo binaxsiin bay xudlay waxba jiribay oo magislaantar isku reerahaayeen miyiga joogtay markuu reer mahad ay ka dhex maqlaan Facebook-gi ahay onaysa eliminate-ku wuxuu ku barnaysa ya waka ma maqlay dad laga dhaadhicin la iyo waxba ka haystay sheedaan iyo xaamiye yaqaanay Soomaalidu in yar baa taqaano wax faansan wax u baadhay in yar baa eliminate-kan ogeey marka asagii baa sheedaankii baa tiita loo sameeyay isaga eliminate-ki tiita laftiisa baray dad marka barnaamijkuna waxa weeyaan Omar Barbar oo caan bixinaya eliminate-ka caanimada loo doontay waka intaasaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo